عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا شيخ عبد حاج حسن إيدو إسلامك مeel kasta oo ay joogaan carrada darafaheeda waxaana ka codsanaynaa masjidka oo sheekha idin sheegay oo hadda Ilaahay raali ka noqdo beeyta kullu taqiyin nin kasta oo Ilaahay ka cabsanayo gurigiisa ah oo beedka Ilaahay ah inaad nagu soo kaalmaysaan nin kasta waxa ay macnaha awoodiisa ay dhan tahay ama hadda Ilaahay raali ka noqdo oo nooc kastaba awoodda ay tahay sida dermaha ahaadeen sida hadda Ilaahay raali ka noqdo dhagaxa ahaadeen sida geed la geliha ahaadeen nin kasta macnaha waxaas ku soo tarta waa wax asaga maalinka qiyaamo aaga horeeyaan hadda Ilaahay raali ka noqdo maxaa waaye xasanaadkooda iyo darajadoodana lama soo koobo karo macnaha kolkii laga sheekeynay masaajidka waxaa la yiri ninka masaajidka camara man aamana billaah wal yawmil aakhir ninka Ilaahay rumeeyay oo aakhiradana inaas dhimanayo rumeeyo ninka ayaa masaajidka camiritaankaas kaliya culimada waxay ka bixisay sharuuc fara badan ama saada Ilaahay raali ka noqdo tafsiir fara badan ay ka bixiyeen camirka in lagu tugto oo kali lagu ma aan reebin camirka ninka dhiso ninka qashanka ka xaaqo ninka gowasha u gado ninka catareeyo ninka hadlay waxa loo qabtay yiraahdo oo u hadlo intaba camiritaanka oo beedka Ilaahay oo la camira ayay ka mid tahay marka Ilaahayna waxa leeyahay masaajidka waa beed Ilaahay qof hadda islaam ah oo lagu magacaabo kala ma jiraan uu yiri Ilaahay waa guri Ilaahay islaamka oo dhan buu ka dhaxeeya hadda Ilaahay raali ka noqdo muslimiinta meel kasta oo ay joogaan hadda Ilaahay raali ka noqdo waxaan ka codsanaynaa masaajidkaas aad u jeedaan oo shubka yar hoosta hadda aaga shubanaad arkaysaan inaad nagu soo tadarucdaan oo masaajidka waa hal qof oo iimaan Ilaahay geli ayaa dhisa kara oo dad waxaaba jirta raadiyo masaajido oo saasoo kala dhismo u qab raadiyo oo intaasoo hanta ku soo diro oo intaasoo adduunyo u soo diro oo masaajidkiisa lagu dhiso marka waxaan idin ka codsanaynaa insha Allah ta'ala inaad masaajidka nagu soo kaalmaysaan hadda Ilaahay raali ka noqdo dhismadiisa intii soonka la gaaray intaan dhaxdoodana si hadda Ilaahay raali ka noqdo aan ku dayactir lahayn falkeeda aan galno assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaan ma aragtay codsanaynaa ama u sheegaynaa ummadda islaamka meel walba ha joogto masaajid ku yaala K7 ee buuro baqti loo yaqaano ma aragtay aan wax badan ku cibaadeysanay ayaa naga ka shaqay kor roob haduu imaado ma reebo darmihii yaalay iyo ma aragtay biyihii way isdhex fadhiisanayeen annaguna ma hayno awood markaasiyada ku cuskano oo ku dhisno waxaan ka codsanaynaa ummadda islaamka ah oo dhan nankiiba markaasiyada ah noo soo markaasiyada oo soo xaragoon karo oo ma aragtay Ilaahay naxariistiisa masjidka Ilaahay wixii markaasiyada lagu dhisi lahaa in loogu kaalmeeyo ayaan u baahanahay maadaama sadaqada ay u macaan tahay ayna u fiicnaan badan tahay tan masaajidda Ilaahay lagu dhiso oo markaasiyada lagu rabbi baryo sida xadiidka nabigeena kaleey salaatu wasalaam laga xusay hal dhagax ama hal laan ninka ku darsada masaajidka Ilaahay in uu naxariistiisa waasacay aakhir uu siinayo oo dambigiisa Ilaahay uu dhaafayo sida la ajligeeda waxaan ka codsanaynaa muuminiinta islaamka ma aragtay Ilaahay raali ka noqdo qurbaha jiraan inay nagu caawiyaan masaajidkaas dhismihiisa aan annagana markaasida masaajidkeed dhisno oo ku cibaadaysano Ilaahay dartiisa ugu cibaadaysano والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى كل وحي هذا وحي الدين كل علماء نوش شيكتي إلهي أجر حسرات الله كسيو إن شاء الله سيد علماء أنا شيكتوي مساجد كانوا أركيسين كل دبكيسة وأركيسين إن شاء الله تعالى إلهي نوحولي سو شيخ نوشيك إنما يعمر مساجد من آمن بالله واليوم الآخر marka insha Allah ta'ala waxaan ka codsaneynaa adduunka meel walba joogtiin in masaajidkan kulli sida culimada ay noo soo gudbiyeen oo ahlu beedka dadka mashaayixiinta masaajidka joogan
waxay sheegeen lacag in loo haayo oo lacag $1,000 in la haayo ayay culimmada inoo soo gudbiyeen marka meesha wax loo baahan fuundiga meesha loo baahan wuxuu sheegay lacag $2,500 in loo baahan yahay kule insha Allah taala beedka ilaahina waxa dhisaayo macnaa man aamana billaahi ki ilaahay ka cabsado marka waxaan codsanaynaa dadka dal iyo dibadda joogaan waxaan ka codsanaynaa masaajidkan inay taballac ay ku soo sameeyaan waxna soo haya waa bisha Ramadaanul Kariim macnaa masaajidku waa iska barakeysan yahay dadku waa dad iska qaxooti joogo maata masaakiin ah marka waxaan codsanaynaa ilaahay inuu ilaahay macnaa suu sheekh noo sheeg waay hal nin ilaahay dartiis u dhisaa masaajidkan aaba ka bixi karo hadda waa $1,000 waa loo hayaa wax ka dhimo waa $1,500 marka insha Allah taala anaga intaan ummad meesha joogno kula faataxada loo soo maraa kula insha Allah ninkii markaas lagu soo xiriirinayo oo masaajidka mas'uulka ah ahlu beedka waa joogaan ki imaamka ah ninkii masaajidkii koodi soo qaban qaabiyay masaajidkan dhibaato badan ayuu soo maray dhibaatada badan waxaa kamid ah hadda saan uu taagan yahay 3 dhismo soo galay laba masaajid oo la isku daray way markii roob imaado masaajidka dirmaha macal gudaha roob daada iska qaaday markii uu jiilaal jirano orax iyo kuleel duhur iyo casrba ma lagu tukun karo marka insha Allah walaalaha islaamka waxaan ka codsanaynaa inay masaajidka ugu kaalmeeyaan mid kale masaajidka lambarka wax looga soo tuuri karo waa 07 10 64 2677